2020 waxaan wadnaa dhammaystirka waddadii nabadda ee isku xiraysay gaalkacyo labadeeda dhinac Puntland iyo Galmudug. waddadaas dhererkeedu wuxuu ahaa 1500 oo mitir, ballaceeduna waxa weeye waa 6 mitir. waxaa loogu talagalay inay ka qayb qaadato isdhexgalka iyo nabadda. waxaa farxad weyn noo ah in goobtii shaqada ay nagu soo booqdeen wasiirada Galmudug, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga, wasiirka warfaafinta, gudoomiyaha degmada dhinaca Galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo xildhibaano golaha deegaanka iyo xildhibaano Galmudug ah. runtii farxad bay noo tahay, wayna farxad gelinaysaa. oo waddadaanu ay laba xaafadood isku xirayso oo degmada Gaalkacyo ka tirsan, shirkaddii ka gacan geysatay iyo nabaddii lagu helay intaba waa ka mahadcelinaynaa. mahadcelin kadib Gaalkacyo maanta way dhaqaaqday, waddo horumarineed bayna aaday. sida wasiiradu ay sheegeen, col dambe iyo qalalaaso dambe ma xamili karto. qaybtaas nabadda ay aaday baanan rabnaa inaan ugu sii baaqno oo annagoo dhanna ku garab siino. maamulka degmadana shaqada uu qabtay iyo heer gobolba waa uga mahadcelinaynaa. waddooyinkan waa 3 waddo weeye. waddadan baa kow ka ah, waddada suuqa dhex marta, waddada 5 star ilaa iyo hotelkii cagar weyne isku xirta. saddexdaas waddo oo mashruuc package oo isku xiran buu ahaa. soolaradii baa ka mid oo aan dhammayna hadda magaaladu waa siraadan tahay, way shaqaynaysaa, waa la dayactiray. waxaa ka mid ah nabadda inay wax ka geystaan. waxaa ka mid ahaa saldhig hadda aan dhammaynay oo galbeedka magaalada ku yaalla. wax qabad lagu faani karo oo in la taageero u baahan. saaka waddadaani waxay ahayd meel aan cidi joogin oo dadka deggan aysan nolol ku haysan. saakana waxaa muuqata dadku guryahooda inay dhinac daloolinayaan, oo ay dukaamo ka furanayaan, oo ay maqaayada ka furanayaan, oo nolol cusubi timid. waa guul baan leenahay. dawladduna waa garab taagan tahay, waana taageeraysaa. warka badin maayo, qorrax baan taagannahay. xayaad iyo kabeergo runtii meeshaan waxaa ka muuqda. waan u mahadcelinaynaa maayarka sida uu sheegay. waxaa weeye haddii aan lagu sheeginna waa la issheegaa miyay ahayd, haddaan lagu sheegana waa la issheelaa. waa issheegay laakiin annaga u joognay waa naga hormaray. marka waa ku mahadsan yahay. shaqo fiican buu runtii qabtay. deegaankaanna waxaa muuqata muddadii uu joogay in shaqo fiican ay ka qabsoontay. wax kastaba ha la sheego, waddadanay qiimaha ay ku fadhido, bulshada ugu fadhido wax sahlan maahan. waxaa weeye nabadday qayb ka tahay, isku socodkay qayb ka tahay, magaalada bilicdeeda iyo qiimaheeda ayay qayb weyn ka tahay. marka runtii Gaalkacyo waxaan leenahay way tallaabsatay. tallaabo xooggan baa muuqata. waxyaalihii yaraa oo amniga oo ka dhimanaana maalmahan si fiican baa loo hayaa, iyo isku furnaanshaheeda labada dhinacba in kalsooni dadku isku qabaan. waxaad maqasheen in ciidamadii wada hawlgelayaan. waxaad maqasheen in maamulladii ay wada shaqaynayaan. waxaad maqasheen dawladihii maaragtay madaxdoodii iyo wasiiradii inay maaragtay wada shaqaynayaan. awalna intaasi waa naga dhimanayd, laakiin waa noo dhammaystirantay. waxaan rajaynaynaa Gaalkacyo wixii hadda ka dambeeya inaanay ka warramin colaadee, inay ka warranto waddo la furayo, warshad la furayo, maaragtay bulsho isdhex gashay, iskuulle iyo jaamacado, maraakiis, xarumo cilmi baaris, isbitaallo waaweyn. halkaas inay noqoto waxay ka warramayso. waxaanan adduunkan ugu baaqaynaa iyo hay-adaha caawiya mashaariicdan oo kale. waxaan leenahay magaalada Gaalkacyo way u diyaarsan tahay. kabaasitigii shirkadihii wax dhisi lahaana way joogaan, oo runtii aanan anugu filayn. laakiin guul weyn ay tahay in laamigii iyo shirkadihii iyo dadkii expertska injineeradii in la heli karo. marka arrintaasi wax weyn weeye. mashaariicdoo dhammi waxaan leenahay way u diyaarsan tahay. mashruuc dambe oo la hor istaagi karo ama la hor istaagi doonana ma jiro. waxaan rabaa inaan dadka reer Gaalkacyood ugu baaqo inay gacan siiyaan maamulka degmada iyo maamulladoo dhan iyo ciidankaba. middaan labaad oon maanta halkaan ugu kulansannahay oo jidka kan waxay ka mid tahay kaabayaashii dhaqaalaha bilowgoodii. waxaan u aragnay Galmudug inay isku tashatay, degmooyinkeedii inay isku tashadeen. bilow inay tahay mar haddii amni iyo maamul la helo in ay Gaalkacyo bilowday inay kaabayaasheedii dhaqaalaha wax ka dhisato. halkaan had dukaan kaliya ka faa'iideysan mahay, isu socodkii magaalada, security-gii magaalada, dhaqaalihii magaalada intaba waa ka qayb qaadanaysaa. waxaan jecel lahay oo kale inaan u mahadnaqno dawladda Ingiriiska oo dhaqaalaha halkaan hadda lagu dhisayo waddada tan
iyo waddooyinka kaleba dowladda ingiriiska oo bixisay dhaqaalahaas waa uga mahad celinaynaa halka haydihii ka qayb qaatay oo kalena waa u mahad celinaynaa maayirka degmada iyo maamulkiisa waa uga mahad celinaynaa hawshan ballaaran waxaan kaloo u mahad celinaynaa shacbiga magaalada gaalkacyo oo aan ognahay waddadan markii la bixinayay inay dad badan taabanaysay ogolaanshahoodiina waa uga mahad celinaynaa